بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هكذا هذا وركي جينما مالغنما خميسة وتاريخنا ولا بايك بيجنتا أفرتا بالله سجالات سنة كهلمدو كون إيو لباتون إيو شنطة قضبض وركان جينما دون ولا باكم إذا عيد ماذا حوق دلك الصومالية ده هو الجلك ويد قبل كشبه إلا ده هو السي عيد ماذا حوق دلك الصومالية ده هو الجلك كبرت المامات صاحب منكو ترسن قوارشتا ولا باكو بينا قبل كشبه إلا ده هو السي howlgalka baltirmaameedka khawaarijta iyo ciidamo ku tirsan guutada 14 Oktoobar waliba ay ku suubeen tuulooyinka la kashal magacaabo Malable Siigaale iyo waliba Buulaarundi oo hooseedeen degmada Janaale gobolka Shabeellada Hoose taliyaha guutada 14 Oktoobar gaashaan la dhexe Cabdixakiin Maxamed Muuye iyo warbaahinta qaranka waliba xaqiijintay ciidamada iyo lugta maryan maleeshiyaadka khawaarijta oo markaas ay diyaarday أنتي مركزية دتك الشعب كدباتيان تاسو شنتي أنتي عيدا مدو حوق دالك الصوماليات كحد خوارج يو كساران ديغانا داسي مدو يمكن كددن بوي ولا بهو القلب اللي رنكو السعودي قبل هذا دحي ولا بكونفورت الصوماليا أو يودان عيدا مدو حوق دالك الصوماليات سمركاسي ماليشيات كخوارج تلنكو حرب ترى قبل هذا دالكا وزير كدكدو يقاديد كبدا الدولة الفدرالك الصوماليا ولا كل من دي جاي ودانك بحرين وزيرك وزارة الدكتور جديد كبدا حكومة فدرال كصوماليا مدن عبد القادر محمد نور الجامع يكولن قاري ولا بالوال الذي وزيرك جديد كي ولي بيزديرسين تبغرتوي البحرين مدن الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة أنتي مركزي لك جود جرى شروينجا مرتد لما صنعة جديد كبدا كاسو كل مقالة جدة بغرتوي دلك السعودية العربية كولنكا oo hay koomir dhale waliba markaasay la ka falanqeeyay sidii lan xoojii lahay iskaaladowka istiraatiijiyada ee aan dhaxayto Soomaaliya Bahrain wasiirada waliba iyo diirada saarana taageerada Bahrain iyo markaasay si jirtay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan dadaalada la ka casriyeeyo kaabyaalka muhiimka ee dalka ay ku mid yihiin horumarinta dekedda cusub iyo waliba garoonka diyaarado casriye saasamal kulanka yaha ay fursad markaasay la ka adkaayay xiriirka diblomaasiyadeed oo lamada dal wila biskaalado ku mustaqbalka dhiniyada gaadiidka dekado ay wila isgaarsiinta si markaasay landeero horumar waara oo markaasay kaabyaalka inaga dhaqaalaha dalka Soomaaliya iyo Sacuudigana waliba ay markaasay ku wada hadaladana iskaaladowka nidaaminta garaadka macmalka arayaha guud ah ee isgaarsiinta qaranka Soomaaliyeed mudane Mustafa Yaasiin Sheekh oo ku qayb galay madala caalamiga ah ee isgaarsiinta adduunka iyo waliba uu kaas la ku qabday magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya ya kulan la qaaday gudoomiyaha hay'adda isgaarsiinta dayax-gacmeedka tiknoolajiyada boqortooyada dalka Sacuudiga kulanka iyo diiradda la ka saaray dhisowka qaab iskaali oo dhexmara lamada hay'adood iyadoo markaasi xoog la saaro wada shaqeynta ka saabsan nidaaminta garaadka macmalka ee tiknoolajiyada hawada sare iyo waliba wadaagista kaabyaalka dhaqaale shirkaasay walba ku qayb galay dawladda shilgadaysan oo Soomaaliya ku mid ah iyadoo walyaabo lan ku hadalan ku mid hayeen arrimo Soomaaliya iyo waliba sidii lan xoojin lahaa xiriirka lamada dal wasiirka wasaaradda ganacsiga dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba deeray wadanka Algeria wafduus hogaamiye wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamuud Axmed Aadan Geesood iyo deeray dalka Algeria wafdiga waliba sidiiran handhawaayay caasimadda wadankaasi Algeria Algeria wasiirka ganacsiga iyo waliba arrimo banaanka dhiirigelinta dhoofinta Professor Kamal Razaaq iyo waliba danjiraha dawladda Soomaaliya fadhi dalka Algeria danjira Yuusuf Axmed Xasan Yuusuf Jeego wasiir Geesood iyo ku qayb galahay carwada ganacsiga gudaha Afrika Intro Africa Trade Fair taasoo Soomaaliya markaasay fursad qaali ah lan ka xoojin doon iskaalada ka dhaqaale ee qaaradda waana la ka dhiirigeliyo dhoofiyo ku kobcinta ganacsiga gudaha iyo dibadda dalka Soomaaliya wasiirka Ntius Rooga waliba la kulamo doonay mas'uuliyiin shalgadiisan intaasayna waliba hayna qodobada gudaha akhbaaradka caalamka waliba kumida Israa'iil oo diiday dalab cusub oo markaas ku kooy Xamaas Israa'iil iyo la ku warma intii diiday dalab cusub oo ku kooy Xamaas oo ka saabsan heliis dhamaatiran oo la ka afjaro dagaalka Gaza waana la ka dhiyaw dhamaan dadka Israa'iiliinta ee la haysada ama ka jar galanta Xamaas xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu warqa qubahi ee la ka tilmaamay heliiskaasi ay ko markaasay wal cusuban ku jarna talaabadan iyo kooyas
iyada wili Israa'iil iyo duqeymo irkee iyo dagaal toos ah ku wada dhulka Falastiiniinta warkii koobanaay geena maadugnaantan in ku dhanyi